madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ka dalbaday inuu la shaqeeyo dowladda uu hogaamiyaha u yahay isagoona ka dalbaday in uu hal qodob uu ka xaliyo ama uu ka baajiyo caasimadda online ayaa ogaatay in Farmaajo uu Sheekh Shariif uu kala hadlay in uu ka baajiyo mooshinka xilka looga qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo si qarsoodi ah ay u diyaariyeen xildhibaano ka badan 110 xildhibaan oo mucaarad ah Farmaajo ayaa Shariif u sheegay in dowladda Soomaaliya ay sameyn doonto isbedel dhanka siyaasadda iyo ammaanka maadaama ay wajahayso dhibaatooyin dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo dibadda ah siyaadarteed waxa uu ka dalbanayaa in Shariif uu istaag ku sameeyo mooshinka kheyraad ka dhanka ah oo ay abaabulayaan xildhibaano mucaarad ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa madaxweyne Farmaajo u sheegay in uu isku dayi doono baajinta mooshinka inta uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxaana heer gabagaba ah maraya kulamadii uu la qaatay xildhibaanada mooshinka waday Sheekh Shariif ayaa markaas kadib la kulmay xildhibaano ka badan 60 xildhibaan kuwaas hormuud ka ah mooshinka waxaana uu u sheegay in ay isku afgarteen baajinta mooshinka xildhibaanadan ayaana qaarkood ka tirsan xisbiga himilo qaran ee Shariif xildhibaanada uu la kulmay Sheekh Shariif ayaa waxa uu u sheegay in waqtiga uu gabagaba yahay iyo shaqooyin badan oo u yaala laga baaqsado mooshinka ay wadaan oo ay xaq u leeyihiin balse ay sabab u noqon cambaareen kaga timaada dhanka shacabka haddii ay yiraahdaan ra'iisul wasaaraha ay waqtigan hor yaalaan shaqooyin badan xildhibaanadan ayaa qaatay talada Sheekh Shariif oo ahayd in mooshinka la baajiyo isla markaana uusan waxba qaban karin ra'iisul wasaare kale oo hadda la keeno siyaadarteed in xukuumadda la daayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aad ugu mahad celiyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed dadaalka uu sameeyay arintan ayaana u muuqata in halkaas uu ku dhamaaday mooshinkii laga damacsanaa in xilka looga qaado ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre waxay dowladdu fursad u sii doontaa sii wadada shaqada iyo arrimaha kale ee horyaala